السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. taageerayaasha xildhibaanada ee reer Burco waan salaamay walaalayaal maanta maalin weyn weeye maalin taariikhda Soomaaliland gali doonta weeye maalin taariikhda Burco gali doonta weeye doorashada aynu u dareernay micnaha aynu ka leenahay ee hawsha badan ay naga baxday waxa weeye in awoodiina gacantiina lagu soo celiyo oo aad idinku doorataan cid ay idin shaqaynaysa waxaana muhiim ah inaad fartiina u meel daydaan inaydan hadhow toole ka cabanin codkiina inaydan eersanin inaan codkiina hadhow toole aan runtii lagu wiirsanin markaa maanta waxaan taageerayaasha halkan ku sugan ee tirada badan leh marka hore ugu mahadnaqaya xamaasadda iyo sida ay mar walba xisbiga waddani ee rajada shacabka u garab taagan yihiin mar labaadkana waxaan idin farayaa reer Burco waad aragtaan Burco siday tahay ceello uma qodnayn cidina uma maqnayn xisbiga waddani isagoo og dhibaatada guud ahaan dalka ka jirta ee baarlamaanka ama golaha wakiilada iyo deegaanka isagoo og qabyada sharciyada ee dalkeenna ka jira waxa uu idiin soo xulay xildhibaanadii halkan idinkala hadlayey oo xul ah oo aanu ku kalsoonahay in ay reer Burco sawirka ay maanta leedahay magaaladu iyo gobolku iyo guud ahaan Soomaalilandba ay ka bedeli doonaan waxay laakiin u baahan tahay taasi markaad idinku codkiina ku taageertaan dinaad tijaabiseen oo tijaabadiisii aad aragteen inuu haddana idinku soo noqdo oo uu yidhaahdo haddana codkaysiiya caqligiinnu caayaya waxa kaloo reer Burco aad ogaataan oo aad ka ilbaxdaan rag baa miyiga ka barooranayey ama Burco ka barooranayey oo magacyo mar hore taariikhda galay oo shaqo qabtay oo qaranka u shaqeeyey oo rikoorkoodii qormay ku muusanaabayey maanta Axmed Silaayana la dooran maayo Ismaaciil Cali Abubakar oo dawladdii Soomaaliya la oran jiray madaxweyne ka noqdayna la dooran maayo beelana la dooran maayo xildhibaanadii idin shaqaynayey ee khashinka idinka gurayey ee magaalada qurxinaya Burco meel la dalxiistaga ka dhigaya baa la dooranayaa ee Cumar bin Cafuuf idinka kaxaynayey ee dhallinyarada entertainmentka u samaynayey ee magaalo lagu soo hirta ka dhigayey Axmed Silaayi wuu ritaayiray waan u soo shaqeeyey qaranka uu mahadsan yahay ninka ku barooranaya waa nin wixii ka kala yaaceen waxaan idinkaga tegayaa oo idinku dardaarmayaa xildhibaanada waddani idiin keenay wallaahi waa kuwii xulka ahaa been ku dhaaran maaye waa kuwa aan aaminsanahay inay wax badan idiin qaban doonaan fartiinna siiya Burco ugu midooba aadna waad u mahadsantihiin salaamu calaykum